anigoo ku hadlayo magacayga Soomaalnimo ma qabo hadda time badan oo aan fikirkayga qayb badan ku faa'iideysto su'aalaha waxaan rabaa wasiirkii hore ee Abdullaahi Maxamed Nuur wasiir dawlihi hore wasaaradda maaliyadda inaan weydiiyo anigu waxaan ahaa shakhsi beersala oo kamid ah shaqaalihii rayidka ee xukuumadii hore iyo midda haddaba una shaqeeyo wasaaradda boostada isgaarsiinta waxaa naga maqnaa mushaar hal sano ah isaguna kursiga lagu soo doortay wuxuu ku soo galay calaa shakhsi inuu $50,000 oo doorashadiisa ay ku baxdo $1 bilyan oo baa lagu soo qeexay doorashadiisii dawladda maanta jirtana wuxuu ku eedeynayaa corruption badan inuu noo sheego ujeedada uu isagu ku soo noqday xildhibaan $1 milyan oo shaqaalihii ama ciidamadii dalka ama qaybihii kala duwanaa oo wasiirka uu ahaana ay hal sano oo mushaar ay ku waayeen su'aasha inuu ii sheego ayaan aad u mahadsan tahay gabadhan kale microphone ka soo sii su'aashaada hadii kale